boqol ku shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaadaad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliya dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanne beereenaan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xooleenaan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii waxayna dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna arrinu intaas weeye diintaanu gudbo nabigeennii suubanaa nabi maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda kuu ahanayay tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxaan yaa gaartay tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaah u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahii weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inuu inoogu soo dhiibay ha inoogu soo dhiibee waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qawlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqadaad wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasu ha noqota asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhdii dib u raaco culimadii la tirinayey ama tawriyiinta la tirinaya magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay gaarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahanta de fuliyayaalkii adinka weeyaan waaxidiinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiiyo wasaaradooda yaa mas-uuliyad dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtihiin macashadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xidhanno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno guni iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma guni iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskanno iyo nafteenna maynu qof yaanba inta qaato waa ka halka adduunku ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuur geed lima inuu bixiyeen kala arkee oo geed babaaya ku abuura oo geed cambaa ku abuura waa baxaya qof gurigiisa usan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoola haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma aha gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaanu nagu kalifaya inaanu saas u guroono dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo duligii foosh xuma aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xuma oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay ku tasaasiyaan oo kor uga hadlaan oo si geesinima uga hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa mustaqilka inay ku leexiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi